بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلهي بمهد له شركة جرائد waxaan u qabanay shalay iyo maalmihii ka horeeyayba waxa ka socday ganacsatada iyo degmada maamulkeeda arrimo ay ka wada hadlayeen oo horumarka iyo canshuuraha ku saabsan arrimo ku saabsan bay ka wada hadlayeen xogaa khilaafa ku dhaxgalay shalay ismadu waxay isugu yeereen maamulka degmada iyo ganacsatadii hadii ay la wada hadlay waxaanu ka soo saaray annaga ismada ahi wada hadalkoodii talooyin baan go'aamaanu ka soo saaray iyo guddoon go'aamadaas waxay ahaayeen ganacsatadana hawl baan u dirnay duqa magaalada iyo dawladana hawl baan u dirnay wixii aanu go'aaminay waxba hadeer faahfaahin ka galimayno labada qolaba wixii aanu go'aaminay waa qaateen oo waa ku dhaqaaqeen inay fuliyaan waa isku gacan qaadeen waxaan go'aaminay go'aanka aan go'aaminay wuxuu ahaa go'aanku meel gaar ah go'aanku meel gaar ah laakiin shir ballaaran la isugu yimaado oo go'aan fadhiya oo ay ku wada shaqeeyaan oo ay canshuurta lagu kala qaado oo horumarka lagu wada sameeyo go'aan ah baanu iclaaminay oo ballaaran in la isugu yimaado dabadeedna go'aanka dambe marka la qaato kan ku meel gaarka markaas uu joogsado kaas lagu camal falo waxaan rabnaa qoladii dawladuna go'aankii aanu siinay siday ahayd inay u fuliso qoladii ganacsatadana waxaan rabnaa siday ahayd inay u fuliyaan wixii ka dambeeyana si degdeg la isugu yimaado oo aynu wax talo ina ka soo wada baxday oo dhammaystiran oo aan ku wada qanacsanahay kulligeen aynu horumarkeena iyo wax laala wixii kale maaragtay masaalixdeena ah aynu ku dhammaystirano shirkaas si degdeg la isugu yimaado go'aamadii iyo gudoomadii ismadana hal fuliyo labada qolaba insha Allah billahi kariim intaasaan oran lahaa wassalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh ay cabasho ka keeneen ganacsatadu duqa magaaladuna uu soo qoray in dib u eegis lagu sameeyo lana soo magacaabo guddi ganacsatada iyo guddi farsamo yaqaan oo aqoon-yahan iyo maamulka isugu jira oo dawladda ka yimaada iyo ismada oo kor joogto iyo la ogaan la leh wax la isku wada og yahay oo aan khilaaf magaalada ka dhalanna ay ka soo wada baxaan waxa kale oo la amray gaadiidkii wadada mari jiray waa xayiraa wuxuuna u xayiraa go'aamada ka soo baxay duqa degmadu go'aamada uu soo saaray waxa kamid ahaa boqolkii 20 baabuurkii $70 laga qaadi jiray in loogu daro $20 baabuurtu sida ay tankeedu u kala yahay in looga qaado baabuurkii laga qaadi jiray 10 in laga qaado 5 gaarigii 20 lagu xukumay oo 20 feerka loo gooyay oo ahaana in 10 laga qaado go'aankaasina wuxuu ahaa ku meel gaar inta guddigaas iyo ay soo imanayaan oo wax loo wada dhan yahay oo la isku waafaqo loo soo saarayo sida awgeed waxaan mar labaad faraynaa maamulka degmada iyo ganacsatadaba go'aamadii shalay la gaaray siday ahaayeen in loo fuliyo guddigii la isku ogaana in si degdeg loo soo magacaabo si hawlaha dawladda iyo hawlaha dadweynuhuba ay u socdaan oo wax la isla ogol yahay oo isla ogol ay ku socdaan dhammaan go'aamadaas shalay la gaaray labada dhinac waa wada qaateen haddana anagu sidii baanu mar labaad ku celinaynaa in la wada qaato aad iyo aad baad u mahadsantihiin